kaasho arrimahaaga salaada qof waliba inaga ah culays ayaa haysta qof waliba wuxuu dareemayaa in dadka kale ay raaxaysanayaan dadku kale ay fiican yihiin laakiin kaligiis uu ku jiro dayiq iyo culays gaar inuu haysto midogow qof waliba in gubtaa hoostaala qof waliba culayska adiga aad dareemaysid waxa laga yaabaa mid ka weyn inuu hayo laakiin dhamaanteen noloshu waxyaabaha ay nabartay oo aan soo tijaabinay waxa kamid ah inaan u baahannahay awoodo inaga aanan ahayn naga waaweyn naga sareeyo oo ah tii Rabbi subhanahu wa ta'ala awoodahaasi dariiqooyin loo maraa jira haddaad damacdid inaad kaliga iska qardajeexdid oo aad ku daydid inaad u baridid Ilaahay subhanahu wa ta'ala si alla saa doontid haddii adoonkiisa tahay oo inuu ka aqbalo waa suuragal laakiin hababka iyo dariiqooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado waa tii nabiga kaleey salaatu wassalaam laga bartay aan ka baranay culimadana inoo soo wariyay marka waxyaabaha la isku raacsan yahay waxa kamid ah culays waliba ku haysta waxaad u kaashan kartaa cibaadada gaar ahaan salaada iyo quraanka labada arrin waa laba arrin oo waaweyn oo hadii aad daa'intid ama qorshaha ku darsid wax weyn ka badbaadin doona ama wax si weyn ku caawin doona Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin quraanka shaki kuma jiro so hanuun iyo adduunyadaada iyo aakhiradaada ayaa waxa kugu jira khayr marka la rayba fihi horta quraanka akhriskiisa iyo dabagalkiisa iyo tadabburkiisa iyo fahamkiisa waa ku muhiim taa waa qodobka kale xiga ee aad umuurahaaga u kaashan kartid walwalka walaaca murugada xanuunka shaqo la'aanta diifta iyo dihaalka ka muuqata salaada weyn salaadu waxa loo kaashtaa iyo sabarka labadaaba waxaad u kaashanaysaa dhammaan arrimahaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayad muxuu ku leeyahay wasta'inu bis-sabri was-salah u kaashta sabarka iyo salaada wali cid ma tahay ma aha dadka hawshaas ku fiican ama awood u laho ama samayn karo wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in يعني dadka khashicinto Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka barayno inagoo inaan ka mid noqono ayaa dadkaasi ay u sahlantahay ay u tahay howl waaweyno oo ku tashto mar waliba marka dhamaanteen waxaan rabnaa khashicinta inaan ku biirno si aan ugu biirno waxaan u baahannahay salaadu inay noo noqoto asal salaad waliba mid ka soo socota inaad ku sii xisaabtantid oo duhur hadaad dukatay tiraahdo casarka meel hebel baan u socdaa xageen ku dukan doonaa talow weysadii ma qabaa horta halkee intaas inta u dhaxaysana waxaad ku jirtaa xifdigii iyo ilaaladii Ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin arrimahaasi waxa ka sii daran walwalka iyo walaaca ku haysta mar waliba oo aad salaadaas dukatid xilliga ugu muhiimsan ee ugu wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay adoonkiisa ay xiriirka dhow leeyihiin waa salaada intuu ku jiro oo de sujuudi iyo howlahaas marka ku jirtid umuurahaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u bandhigtid baridid dabcan dhamaanteen waxaan weydiisanayno Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa jannada inuu nageeyo maalinta ugu dambaysa ee qof waliba higsigiisa halkaas yahay laakiin umuuraha ku haysto dunyawiga ee ciriirka iyo reerkaaga iyo umuurahaaga iyo stiil waad u bandhigi kartaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuuna ka caawinaya sida looga bartayna waxa weeye uu naxariis badan yahay nooma qabto arrimaheena wuuna cafiya inagoo dhiiqa ku dhex jirno de eber oo aan mudnaynba in la caawiyo ayuu bum ayaa waxa laga yaabaa inuu shumac dad wada u shido waxyaabaha aad niyada ku haynaysid waxa kamid ah in dad ka daran ay jiraan ka culays badan ay jiraan laakiin uu ka farxad badan yahay maxaa ku dhacay talo uu ka hantiyaday laakiin haddana uu ka qurxoon yahay maxaa ku dhacay talo muxuu sameeyaa waxa soo dhan waa inaad ku xisaabtantaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in isaga dhinaciisa u sahlan tahay laakiin qofkaasi asraar ayaa laga yaabaa inuu jiro ayaan dhaxlaas waxaan daawanayay nin Guantanamo Bay ku xirnaa muddo 20 sano miya mise dhowr iyo 10 sano inuu carab ahaa baan u maleynaya oo la soo daayo ugu dambeyntina dambi lagu waayay ninkaas waxa ka muuqdo wanaaga quruxda haybada ma maleyn kartid waraysiga marka uu dheeraa waxyaabaha cajiibka ninkaas see kugu suuragal noqotay inaad daa'intid oo aad ilaashatid caafimaadkaagii mar la weydiiyay waxyaabaha uu dhahay waxa kamid ah aniga jirdil nooc waliba oo qof bini aadan lagu sameeyo ayaa la imarsiiyay wax noola cishta ma jiro habeen maalin jiifa noola diiday Guantanamo Bay qof ku jira waa dareemi kartaa marxaladaha uu soo maray laakiin mar waliba waxaan niyada ku hayo yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala
إنه نديعين مر ولبنا وح سجوكتان ودل بنجر وحي أهيد أيامي هو النولد دي جرى لكن مركز من الله قال عليه صلاة ربعنا دكتور صلاة أن ويسقاته أن دكتور أن حتى مركز أن الله قال علينا هل كاس وجمع هرين والصلاة وحن كدكني النية ده imagine مركز قفكاس مناعة يأود ضدك كلا أين حيسنين أي إلهي سبحانه وتعالى سي لبا تنصنو Guantanamo Bay qofkii ku jiray isagoo faraxsan oo hadeer dawladii la doodayo oo raba dawladii in sharciga inta la marsiyo looga qaado malaayiin dollar maadaama waqtigaas laga lumiyay ayaa jooga adigu iyo anigana inagoo banaanka joogna hawada cabayno leertii iftiinkii haysana ayaa murugo iyo walaac iyo walwal iyo problem dilay arintaas ka war markii يعني هذا لو كلا دوية مركب وحبان نجا قلدن basically مركب لفيري طريقة أنا وحقول هذينا لقيا إني وحكي قلدينه وعن عصوصتا صلاة وحيابها عجيب كأنا تاريخيا أنا كسر أركب وحكم ذا وحاجر أن وذا الشقين جرني أنا إني صاحب كيو هدي الجوجا أو اللي له إنجيل جمعالي مركب واجس برنامج بنديارين جرني كود أيام قريني سوفت وير وحبان ديزاين قريني بروبلم بان نقبسنيا marka habeenadii amarka qaarkood inta isu nimaadno reeraha laga soo tagaa la wada seexan jiray yani almost waxaan u maleynaya 20 sano ku dhawaad ka hor way marka la isu yimaado oo koodka problem baan naga iimaanay waxba aan naqabsanaya ma dhaqaajin karno waxyaabaha waagaas tarbiyada aniga ii ahaa gaar ahaan oo isaga aan ka bartay khayr Allah si waxa kamida inuu yiraahdo ustaad hawshu waa adag tahay u kaadiba laba ragcaan ku dhufanaya haduu inuu ilaahay noo fududay laba ragcoo dukanaya haye problemkii maanta oo aan ku rafaadayna waxa suuragal ah meel yar koma yar inay meel naga haysatay meel yar oo cilad yar ay ka jirto bas ustaad kana ma fiirna bum hawshu waa dhamaad alxamdulillah waagi dambe dhaqan aan ka dhiganay aniga kulleeyay tarbiya fiican ay ahayd odagu waxa way khayr Allah siinin aad iyo aad u wanaagsan oo waxaas inay daa'in isaga u ahayd suuragal laakiin anigu 10 bay ahayd taa markii wixii ka dambeeyaba culays kasta oo aan dareemo waxaan dareemayay meesha aan u carray inay tahay xagga problem qofa waqti ka soo wajahay culays binaadana ayaa ku saaran arrin ba hagaagila xag ward fafirru ila Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala nicis markaad u ordaysidna de dabcan waxa weeye waxa ugu wanaagsan oo ilaahi aad u maraysid waa cibaadadii uu ku faray iyo umurihi isagii uu kugu jecel yahay inuu kugu arko marwali marka salaadaas ayaa muhiim u kaasho salaada umurahaaga mar waliba murugada iyo qolka aad dhex fadhid iyo banaanka iska socota ilaamin duurkaas ku jirto isaaqada raadinaysa laakiin salaadu yeena ka tagin faraa'idta si fiican u ilaasho shanta salaad ee la isku amray si gaar u ilaasho ka badi laakiin nawaafishi ku dar duxadaada duko howlahaada tirada badan ku darso mar waliba oo aad dukatidna waxaad samaynaysaa hays ilaamin isla marka salaadaas aad ka baxdid durbaba gacmahaadii taag oo waxaad tiraahdaa yaa rab howlahaadii u bandhigo ha ilaamin sababtoo ah inta badan waxaa dhacda salaada markaan dukado salaamu calaykum wa alaykum salaam marka la yiraahdo saas loo kala baxo in durbaba ay kugu soo dhacdo howlo kale iyo awsi ordis maya daqiiqadaas ka faa'iideyso just istaji u kaasho salaada ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa in uu noo sahlo cibaadada salaada noo sahlo umuuraheena dhan u fudo qof waliba muruga haysa qof waliba culays dareemaya ilaahi waxaan ka baryayaa inuu culayskaas ka qaado sara ayaa inoo ballan insha Allah